السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامي دمان أصحابتي قيمها إيقايها مدن ميلو البقى الدنيا دعالي ذيك جوكتين مقعيق وموهن channelك أدابن يسانا وشان ميديا guys فيديو غان وكدوين فيديو دين هوري waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo maamo Soomaaliyeed oo baafinaysa gabadheeda oo ka maqan in muddo ah fadlan walaal si share garay gaarsii asxaabtaada mahadsanid bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha muslimiinta dhamaantood halkii ay joogaanba salaan kadib waxa iga maqan inantaa meesha sawirkooda ka maqanaya weeyaan hooyadii inantaa dhashay baan ahay 3 bilood bay inantaas iga maqan tahay bishii 8 habeenkii 4 ahayd bay iga tagtay casar baan kaga tagay guriga iyadoo joogta meel alaala meel ay qabatay iyo meel ay ku nooshahay wax wara kama hayo inay dhimatay inay nooshahay ma ogi 3 bilood inantaas iga maqan tahay iyo dhowrka habeen mana seexdo waxna ma cuno saacad walbana waa ii murugiyo oo hin iyo dhibaato inantii caruurta igu weynayda ayaa iga maqan geeri iyo nolol midna ma hayo qof dhinta waa laga samraa ilaahay baa maxay iska leh geeriduna waa xaq laakiin qof aadan geeri iyo nolol midna hayn murugo gooniyo leeyahay waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta meel ay joogaan ba qofkii arka ama socodkayga maqla inuu ii sii gudbiyo ii sii share gareeyo qof walbana dhibaatada haysa ilaahay ka dulqaado oo ha ka faydo kurbada waxaan ka codsanayaa inay ii sii share gareeyaan walaalaha muslimiinta qofkii inanta arka sawirkeeda iyo codkaygaana dhageysta ilaahay isagana waxa weeye qof waliba halku ka ciileeyahay ka cawilo ajar iyo xasanaadna wuu ka helayaa waayo hooyo waxa weeye waa la garanayaa dhibaataysan qof waliba dhibkeedu uu fahmayaa waxa weeyaan hooyo iyadu cidna la mid ma ahan way ka dhib badan tahay cid walbaba inkastoo cid waliba ay murugeysan tahay inanta waxa weeye ehel u ah ama waa garanaysa ama waalid u ah ilaa ardayda iskuulka la dhiganaysay ilaa macallimiinteedii ilaa qofkii muslima ama jaara oo wax garanaysa dhibaatadayada og ama arkay wuu noo ducaynayaa wuu nala murugeysan yahay haddana aniga waxa ii gooniya dabeerkii bay daloola marka waxaan doonayaa walaalaha muslimiinta halka ay joogaan baynanta inay ii sii share gareeyaan ina soo duceeyaan in ilaahay ii soo dhaweeyo haday nooshahay warkeeda iyo aragtideedaba nimco xasan cabdiraxmaan daadeeduna waa 16 jir sanadka iminka dhamaadka ayay 17 jir sanaysay waa inaan sanadkii 16aad jirta burcay ku dhalatay inta ku laakaatay iskuul bay dhiganaysay 7 bay noqotay waxa weeyaan inta lama hayo geeri iyo nolol galab bay ka dhaqaaqday guriga casar wax warana ma hayno